tababarkan uu soo xidhay gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa ku saabsanaa baarista badeecadaha kala duwan ee dalka soo gala waxaana tababarkaasi qaatay xubno ka mid ah hay'adda dhowrista tayada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana tababarkaasi bixinayay khubaro ka socotay maxadka baarista tayada ee dalka Ethiopia ugu horeyn halkaasi waxa ka hadlay agaasimaha guud ee hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland Xamse Suldaan Aadan iyo Commissioner Faisal Maxamuud oo ka mid ah xubnaha hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland waxaana ka warrameen tababarkan iyo muhiimadiisa maanta waxaanu u fadhinaa tababar loo sameeyo shaqaalaha hay'adda dhowrista tayada runtii waxa nagu matalaya oo nagala soo qayb galay kulankaasi oo bixinaya tababarka madax sare oo ka socota quality controlka Ethiopia runtii Gashwa iyo Lagase aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan rajaynayaa in dhammaan shaqaaluhu ay kulankaasi ka faa'iideysan doonaan tababarka iyo aqoon kororsiga oo ku salaysan heshiisyadii labada hay'adood gaar ahaan naga dhaxeeyay ayuu ku salaysan yahay waxaana dalka Ethiopia imika waxa naga maqan group dhan oo xaqii laabka ah oo iyana tababar u jira halkana maanta waxa lagu tababarayay qolooyinkii inspectionska iyo baarista sameynayay geesta kalena halkaasi waxa ka hadlay mas'uuliyiintii bixinaya tababarkaasi ka socday maxadka baarista tayada cuntada ee dalka Ethiopia waxaana ay ka warrameen tababarkan iyo sidoo kale waxyaabaha kala duwan ee ay ku bixiyeen iyagoo oo sheegay inuu tababarkan muhiimad gaar ah u lahaa xubnaha qaatay iyo Soomaaliland Muuse Xasan Xaaji Yuusuf gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland ayaa dhankiisa waxa uu ku dheeraaday isla markaasina faahfaahin ka bixiyay tababaradan iyo sidoo kale dadaalada kala duwan ee hay'addu ugu jirto sidii kor loogu qaadi lahaa shaqaalaha ka howlgala hay'addaasi si loo helo agab iyo shaqaale awood u leh in ay baaraan badeecadaha kala duwan ee dalka soo gala tababarkan oo ku saabsanaa qaybtan hubinta tayada ama baarista ama la isku yiraahdo conformity assessment tababarkan oo ay inoo qabteen ama inoo diyaarinayeen laba khubara oo ka yimid Ethiopian National Quality Infrastructure Institutions waa hay'adaha ku shaqo leh ilaalinta hubinta tayada ee dalkan ay walaalaheenna nujaarkan Ethiopia oo heshiis aanu wada galay ay kamid ahaayeen sidii labada dal ay uga shaqeyn lahaayeen hubinta iyo ilaalinta tayada agabka u kala socda labada dal farxad weyn bay noo tahay ka hay'ad ahaan inaanu heshiiska wada saxeexnay farxad weyn bay noo tahay maanta in tababarkan oo muxuu ahaa mudaba socday ahaana tababaro daba joog oo ka socday dalka gudihiisa iyo qaar shaqaalaha hay'adda ee kala duwan qaybahooda baarista qaybahooda heer tayada ama standardska iyo certification-kuba ay ugu tageen magaalada Addis Ababa si loogu soo tababaro practically-na ay ugu soo bartaan cilmigan run ahaantii labadan mas'uul ee maanta in laga jooga marka la isku daro aqoontooda ay ka soo shaqeynayeen muxuu ahaa qaybtan quality-ga ilaa 50 sanadood ay ka soo shaqeynayeen marka la isku daro khibradooda waa inoo muhiim marka inaynu khibradda ka faa'iideysano waayo dhalinyaradeenna iyo institution-keennan hay'adda tayada oo imika cusubi waxay u baahan tahay ugu muhiimsan waxa weeye waa aqoon iyo khibrad si ay u fuliso oo u qabato shaqadii qaranku uu inaga sugayay gabagabadiina gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu shahaadooyin gudoonsiiyay xubnihii tababarkaasi bixinayay